maalintii gudoomiyihii aniga iga horeeyay la qarxiyay oo dad badan oo ehelkayga ah isku meel lagu laayay jamcadii ku xigtay axad beed waxaan dhageystay masaajidkii ugu xigay masaajidka wadaadka wuxuu ka leeyahay tarbiyada awlaad khudbadana waxaa loogu talagalay asbuuca waxa soo dhaca in lagu sheego oo lagu saxo ummadda culimada waxaan u sheegayaa masaajidda kaligiin ku tukan maysaa annana bannaanka joogmay ama waa xiraynaa ama shabaab waa la wada diriraynaa ayaan dhawey masaajid baa nin lagu hordilay wadaadkii iimaanka baa la xira odayaashii oo dhan baa ii yimid waa layla soo hadlay wadaadkii ha la sii daayo wadaadkii taliyihii qaybtaan waxaan ku yiri wadaadka soo daa baaridna ha gelina culimadii iyo odayaashii baan qado u sameeyay waxaan ku yiri culimo Allah iyo masaajid ma wax ka hadlaysaa aniga waxba iguma fadhiyo adinkiisa ay dhiba kumana tukado ama aan masaajidkooda tukanno oo shabaab dagaalku waa diin bay wadaan been ahayd diin taxriifka ka sax ama masaajidda waa xirxiraynaa kulligeena guryahan ku tukanaynaa بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد ويهن وحا هذا الصوبضان يا سوشيال ميديا خاصة ما قد لما قيو دينة لما قيو قارهان دادك مسؤولين تأهي صومالي دا أما السياسة دا كتشرتا أما jagooyinkii iyo mas'uuliyaadka haya ayaa marar badan waxaa soo noqonaysa hadallo gaf ku ah ama meel kaga dhac ku ah diinta islaamka oo ay ummadani xambaarsan tahay hadda ka hor dhowr goor waa kii dad mas-uuliyiina oo si khaldan uga hadlay diinta ay culimmadu ka hadleen la saxay laga jawaabay la baraarujiyay laakiin waxaad moodaa arrintaasi inay noqotay arrin iska moodo oo socota ay noqotay waxaa u dambeeyey oo maalmahan social mediaha la isdhex wadaa oo aan jeclaan lahaa in cid kaleeto oo naga kaafisaan heli lahayn oo muxuu ahay caddeeya nin ka hadlaya magaalada gaalkacyo sida kolley hadalkiisa ka muuqata inuu gudoomiyaha qaybta Puntland inuu yahay baa ka muuqatay magaalada Gaalkacyo inuu mas'uuliyad kala hayana ma garanayo laakiin in mas'uul u muuqda sida hadalkiisa laga fahmayo ninkaasi hadalkiisu wuxuu u eg yahay marka hore ku bilaabanaya in uu culimada doonayo inuu kala hadlo ama ku eedeeyo inaysan ummadda waxa haysta iyo dhibka haysta aysan ka hadlin khudbooyinka jumcada iyo meelaha munaasabaadka ummadda lagu baraarujinayo waxyaalo kale ay kaga hadlaan wuxuu soo qaadanayaa qiso uu leeyahay qarax hadda ka hor dhacayo dad qaraabadiisa lagu laayay suu sheegayo iyo ninkii gudoomiyihii iga horreeyay buu leeyahay markuu dhacay kadib jumcadii ku xigtay baa masaajid aan muxuu ahay khudbadiisa aan dhageystay ayaa wuxuu kaga hadlayaa buu leeyahay ninka imaamka tarbiyatul awlaad طبعا wuxuu ka wada bimacnaha isma laha dhibka ummadda haysata iyo waxa uu wadaadku ka hadlayo markaasaa wuxuu ku xijiyey khudbada waxaa loogu talagalay arrimaha markaa taagan ummadda haysta in lagaga hadlo waana hadal saxa in ummadda lagu baraarujiyo kolba xaaladda taagan inay khudbadu ka hadasho culimaduna ay baraarujiyaan intaasi qoonsi ma laha dhib ma laha laakiin wax la yaab leh wuxuu noqday wuxuu yidhi culimadu waxaan u sheegayaa masaajid ku tukan maysaan annaguna bannaanka ka joogi mayno ama waan xidhaynaa ama shabaab waan la wada diriraynaa masaajidda waa xidhaynaa haddii aan masaajiddu ayna shabaab la dagaalamin
intaa markuu yidhi ayaa waxaa isqabsaday hool weyn buu ka hadlayaa oon u malaynaya dhanka galmudug inuu yahay. hoolka uu ka hadlayo dad badan baa fadhiya, rag iyo dumarba leh. hoolkii waxaa isqabsaday sacab iyo mashxarad ayaa isqabsatay. kadib haddana wuxuu ka sheekeeyey, wuxuu yidhi masjid ayaa hortiisa nin lagu dilay, kadibna wadaadkii imaamkaa baa la soo xidhay, odayaal baa u ergeeyey. waxaan la hadlay buu idhi ninkii amniga haystay oo waxaan ku yidhi wadaadka soo daa, baadhisna ha gelinin, adoon baadhin soo daa. kadib waxaan kulmiyey buu idhi culimmadii iyo odayaashii baan kulmiyey, hadalkanaan ku idhi buu idhi, hadalkaas aada ugu fiirsada. waxaan ku idhi buu yidhi soo masjid ma aha waxa aad ka hadlaysaan. masjid aniga waxba iiguma fadhiyo, adinkiisa ayaa idhiba, mana ku tukado. masjid aniga waxba iiguma fadhiyo, aadaankiisuna waaba idhibaa, kumana tukado. intaasuu isku daray. intaa markuu yidhi mar kale hoolkii sacab baa isqabsaday. wuxuu mar saddexaad yidhi culimmadii isagoo la hadlaya, ama aan masjidka ku wada tukanno culimoy, ama shabaabku diin been ah ayay wataane taxriifka ka saxa. wuu ku celiyo wuxuu yidhi ama masjidka waan xidhaynaa, masaajidda waa xidhaynaa, kulligeenna guryaha ayaan ku wada tukanaynaa. masaajidda waa xidhaynaa, kulligeenna guryahaan ku wada tukanaynaa. waxaan is idhi markaa ninkani ma culimo gooni ah buu ka hadlayaa, deegaanka uu joogo culimmadooda miyuu ka hadlayaa? laakiin markaan haddana dib u sii dhegaystay oo hadalkiisa gadaal dambe culimmadii oo dhan ayaan u jeedaa, culimmadoo dhan buu wada saaran yahay oo ka hadlaya. haddaba hadalka noocaasa iyo dhiiranaanta noocaasi, indhadayga noocaasihi oo ruux muslim oo ilaahay iyo aakharo rumaysan ah uu ku hadlayahay, oo haddana social mediaha la soo geliyo dadkooda dhegaysanayaan, oo haddana ruux mas-uul ahoo xil haya uu yahay, waa arrin runtii wax weeye aada iyo aada naxdin u leh. waa sax in culimmada lagu baraarujiyo waajibkooda, iyaguna isbaraarujiyaan ciddii kalee dareemaysa inay culimmadu mas-uuliyaddoodii ka gaabiyeenna inay ku baraarujiso, arrin saxa weeye, hadal kama noola. in masaajidda iyo khudbooyinka ka baxaya ay ummadda mashaakisha haysata lagu daaweeyo, cudurrada lagu daaweeyo, inxiraafka diiniga iyo yacni qallooca diinta lagu sameeyo lagu saxo, ayaduna waa arrin sax wey. laakiin waxaa qoonsi weyn leh, dalab iyo qallooc weynna uu ku jiraa hadallada uu ninkaasi daba dhigay hadalkaa isagaa. haddii aydan shabaab la dagaalamin masaajidda waan xidhaynaa. shabaab iyo inta la midka oo afkaarta khaldan xambaarsan, in ummadda looga digo afkaarta khaldan cid walboo xambaarsanba waa mas'ale ka mid ah masaa-isha culimmada iyo masaajidda iyo ducaaddu inay ka hadlaanoo cid kasta oo khaldantay sidii loo toosin lahaa ay ka hadlaan, ummaddana ku baraarujiyaan. waa mas'alo masaa-isha muhimkaa ka mid a. laakiin kaba soo qaad haddii ay dhici weydo, masaajiddii ma la xidhayaa? masaajidda ilaahaysma waxaa loo dhisay oo keliya in uun lagaga hadlo shabaab iyo khaladaadkooda keliya miyaa intaasoo loo dhisay? oo macnaheedu waxa weye haddii taa la waayo masjidku macnaa kuma fadhiya, waa in la xidha miyaa? waa arrin khalada weeye. masaajidda ilaahay waxaa loo dhisay sida nebigu uri sal alla alay wasalam in lagu tukado, waxaa ugu muhiimsana loo dhisay salaada waaye. waxaa loo dhisay ilaahay dikrigiisa sida nebigu sheegay sal alla alay wasalam, waxaa loo dhisay in lagu cibaadaysto, waxaa loo dhisay in nuurka ilaahay ka baxo, waxaa loo dhisay in ummadda wax lagu baro, lagu tacliimiyo, aakhiradeedii adduunkeeda yacni wax weeye danaheeda looga hadlo. waxaa loo dhisay oo qeybka ah wixii khaladaad ahee bulshada qeyb ka mida ay diinta ka gasho ama kooxi ka gasho in la saxo oo masaajiddu saxdo.
haddii marka mas'alo ka mida masaa-ishii masaajidu sixi lahayd ama qaban lahayd haddii la waayo masaajidda in la xidha miyaa su-aal labaad weeyaane masaajidda xidhitaankeeda yaa xaqu leh yaa xidhi karaa allahu qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahy waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha wa sacaa fii kharaabiha yaa ka dulmi badan cid ilaahay masaajiddiisa u diiday in ilaahay lagu xuso oo ka shaqeeyey masaajiddu say u kharrimi lahayd u burburi lahayd loo xidhi lahaa dadka loogu diidi lahaa wa sacaa fii kharaabiha ulaa'ika maa kaana lahum an yadkhuluuha ilaa khaa'ifiin kuwa noocaasoo kale ah ma mudna inay masaajisa galaan ilaa iyagoo cabsanaya mooyaane cabsiin bay mudan yihiin markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi masaajidda ilaahay dadka camiraayey yuu ilaahay tilmaamay tabaaraka wa tacaala oo dadka mu'miniinta ah ilaahayna hanuun uga markhaati kacay marka masaajiddii waa xidhaynaa waa hadal aad iyo aad u culus weeye inuu ruuxu ku hadlo bal inuu niyoodo inuuba bulsho dhexdeeda kaga hadlo haddana loo sacbiyo iska badaa masaajidda ilaahay baan xidhayaa waxaan u malaynayaa hadduu awood u yeelan lahaa sida macron oo kaleeto inuu masaajidda u xidhxidhi lahaa sida hadda hadalkiisa ka muuqata waana arrin runtii waxa weeye ruux muslima oo qalbigiisa iimaan yar ku jiro aan ka soo bixi karin way hadalka noocaas oo kalea waxaa ka sii daran ka daroo dibi dhal bay soomaalidu tidhaahdaaye yasidda iyo xaqiridda masaajidda oo waxuu ninka hadalkiisa ka mid ahaa masjid aniga waxba iiguma fadhiyo mana ku tukado hadduuna masjidku qiimo kuugu fadhiyin oo uusan waxba kuugu fadhiyin ma muslim baa tahay isweydiin waaye ilan ilaahay mu'miniinta wuxuu ku tilmaamay inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllahi waاlyowmi alaakhiri waaqaama asalaata wa aata azakaata walam yakhsha ila allah facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuhu ilaahay magaciisa in lagu xuso mu'miniin baa ku xusa mu'miniin baa ilaahay ku caabuda dad ilaahay maalinta aakharo rumaysa masaajiddu waa muqadasaad muslimiintao dhan bay ka dhexeeyaan muslimka caasiga iyo midka mutiica ah kulligood masaajidda agtooda qiimo weyn bay ku fadhiyaan ixtiraam bay leeyihiin nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh magaalada madiine markuu soo galay shaqadii ugu horreysay uu qabtay bulshadu ay isugu tagtay waxay ahayd in masjidka la istaajiyo nolosha muslimiintu waa masaajidda haddii marka masaajiddii ayna macno kuugu fadhiyin ma shacab gaalo a baad u tahay mas-uul mise shacab muslimaad mas-uul u tahay adiga ku garanaya nabigeennu sal alla alay waslm waa ka dhahaya xadiidka fii saxiixi muslim min xadiidi abi hurayra axabu albilaadi ila allahi masaajiduhaa dhulka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay waa masaajidda ilaahayna waa ugu jecel yahay dhulka adigana macna kuuguma fadhido qiimo kuuma laha masaajiddu waxba kuuguma fadhiyaan laakiin waad caddaysayoo waxayna macno kuugu fadhiyin kumaba tukatidba